Dawladda Ruushka ayaa markii ugu horeysay waxa ay ballan qaaday in Somaliya ay gacan ka siinayso dagaalka ay kula jirto waxa ay ugu yeedhay argagixisada. wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov waxa uu sheegay in xukuumadda Moscow ay qorsheynayso in Muqdisho ay ka taageerto dadaalada lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab. Lavrov ayaa hadalkan ka sheegay kulan ay magaalada New York ku wada yeesheen ra'iisul wasaaraha dalka Somaliya Xasan Cali Khayr oo Soomaaliya uga qayb galaya shirka 17aad ee golaha qaramada midoobay. wasiirka arrimaha dibadda Ruushka waxa uu xaqiijiyay in Ruushku isagoo tixgelinaya saaxiibtinimada Ruushka iyo Soomaaliya oo uu ku tilmaamay mid taariikhi ah ay diyaar u yihiin in Soomaaliya ay gacan ku siiyaan dadaalada ka dhanka ah xag jirka iyo argagixisada. warbixin ay daabacday wakaaladda wararka dalka Ruushka ee magaceeda marka la soo gaabiyo loo yaqaano TASS waxa lagu sheegay in wafdiga labada dhinac ay isdhaafsadeen aragtiyo ku aadan sidii horumar looga sameyn lahaa xiriirka u dhaxeeya, waxaana dhinacyadu ay ku ballameen sida warbixinta lagu sheegay in la ballaariyo iskaashiga dhinaca siyaasadda, ganacsiga iyo dhaqaalaha ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Ruushka. Nuruddin Culujoog, SABC TV, Hargeysa.